miyaanaad ka cabsanayn ugu yaraan maalin ilmaha yar markuu banka qiyaamo la joojiyo timihiisa isla markiiba caddaan isku bedeli doonaan yawma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuh waa maalin wajiyada qaarna ay iftiimayaan baa ilaahay yidhi qaarna wajiyadu ay madoobaanayaan yawma yafiru almaru min akhiihi waa maalinta qofku hooyadii walaalkii ubadkii xaaskii ay kala baxsan doonaan maanta waa la isku yaacayaa adduunyada waa la isku yaacayaa hadday dhibaata timaado dadku dhibaatada maanta waa iska kaalmaysanayaan nin walba kii halka jooga dadkiisii waxbuu u dirayaa laakiin qiyaamaha cidna cid wax u diri mayso hooyadaadii macaanayd ee ku dhashay haddii la yidhaahdo miisaanka ayaa lagu hayaayo hal xasana ayaa ka dhiman ee sii hadday xasanaysa jannay galaysaa qof kasti wuxuu leeyahay maalintaa may ilaa naftayda jannaha ku hubsanaya cid maaqaana buu leeyahay yawma laa tamliku nafsun linafsin shay'a walamru yawmaydin lillaah yawma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim bale yawma laa yajzi waalidun can waladihi waa maalinta waalidku ilmihiisa wax u qaban karayn cunuguna aabbihi waxba u qaban karayn qur-aanku maalinta aad buu uga warramay laakiin ayaa maanta kuwaan toobaya iyaase waru hayaba warkana ayuuba saameeyeyba maanta xasan albasri ayaa raabica ayuu ku yidhi miyaad guursatida waxay tidhi imaam xasanow waxay tidhi afar aayadood oo qur-aanka afar mas'aladood oo qur-aanka ku taalla ayaa walwalkii ayaa raaxadii iyo hammigii iga qaada bay tidhi waxay tidhi qur-aanku waxa uu noo sheegay in maalinka qiyaamaha dadku ay laba u kala baxa inay dadku laba u kala qaybsamayaan qolana kitaabka midigtay ka qaadan qolana bidixday ka qaadan labadan qoloqoladan ku jira iyo caddayn bay tidhi qur-aanku waxa uu noo sheegay miisaanka in acmaasha la saaraayo qofka khayrkiisa cuslaadana janno inuu ku waariyaayo qofka sharkiisa cuslaadana naarta inuu ku hoyanaayo labadaa midaan ku jira ay kala caddayn bay tidhi jidka siraadin la marayo qur-aanku ii sheegay dadna ay ku hoobanayaan jahannama dadna naarta u gudbayaan labadaa qoladaa ka mid ahaa iyo caddayn bay tidhi fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir baa la yidhe fariiqaan ku jira ayaa ii caddayn bay tidhi waa raabica qofka meel u caddahay meeli ka madow dadka zamankan adduunyadan alla weyn dadkii qalbigooga iftiinku galayna aakhirada alla weynaatay aakhiradii markay weyneeyeenna noloshii adduunyada waa u dhib yaraatay raaxadii adduunyada waa ifka u soo baxday maxay tahay adduunyadu cish maa shi'ta fa innaka mayit jibriil baa u yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ku yidhi intaad doontaba noolow kii dhinta un baatee qorshaha ku darso wacmal maa shi'ta fa innaka majziyun bihi camalkaad doontana la imo waa laga abaalmarin doonaa qiyaamahiisa ogow waxbin man shi'ta fa innaka mufaariquhu ciddaad doontana jeclow adigay ciddaad isjeceshahayna mawdka nin kala geyn doonee caalamkana ku noolahay marka loo eego cawaalimta ka dambaysa caalamkan adduunyadu wuxuu noqonayaa dhibic marka loo eego cawaalimta dambaysa caalamu dunya waa 60 sano 70 sano caalamulbarzakh ayaa ka badan caalamka adduunyada dadkii zamankii nebi aadan dhintay ilaa joogadeenna caalamkaasay ku jiraan qolana way ku cadaaban tahay qolana way ku raaxaysanaysaa waa loogu janneeyey alqabru ima rawdatun min riyaadi aljanna wa ima xufratun min xufari innaar buu nebigu yidhi qabrigu laba mid buu noqonayaa ama beerbeeraha jannada ka miduu qofka u noqonayaa ama godgodadka naarta ka miduu u noqonayaa sayidina cusmaan radia allahu canhu mar alle markuu qubuuraha yimaada ilmadaa ka daadanaysay waxaa la yidhi cusmaanow janniya naar marka laga sheekeey ma oydide qabriga maxaad la oydaa markaad aragto wuxuu yidhi qabrigu waxaan ka maqlay nebiga oo leh calayhi salaatu wasalaam qabrigu waa guryaha aakhiro ugu horreeya hadduu qofku halkaa ku nabad galo nabadgelyo ayaa u dambaysa hadduu halkaa ku cadaabo ku khasaarana khasaarihii weynaa buu u gudbayaa buu yidhi زرارة ابن أبي أوفى مساجد بوكاها إمام تابع بوها صلاة الصباح بجمعي تجيي ركعتي ورمركو سورة فاتحة ودميي سورة المدثر بوكو حجسيي مركو مريو فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ما لنت سورة عن كل فنبا إلى هيد ومالين علس ويام ما لنت عددك قال دانا كما فضض با إلى هيد آية دا مركو مريو إنك إمامك تابعك جليلك ودعايو نفتي بك بحثي سيدنا عمر مساجد النبي صوغ الهبان
إن يرو شاب أركي أو صلاة الليل تكنايا أو صوتك كر وقادايا مركز عمر استاغو ودغيستي يركي يرا مركو فاتحة دميي وعقوع جسيه والطور وكتاب مسطور في رق منشور دغيستي عمر مركو مري يركي يرا إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع هل كان مركو مري عمر أوصح أو دعي قريسي بالجيي صدا مع الموت بو حنون صنع حنون جيسن وحكيم دل موقي سيدنا عبد الرحمن بن عوف أي الله كان عنتي سجى صوما مركز قرآن كيبو كلافري وقبل الفطور ويام قرآن كيبو كلافري مركز آخري إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما طعام كأهل النار كأهل كور رميسا آيات أمركو تابتي سيدنا عبد الرحمن أوي إلا ما لنت وافرك رواي سيدي بقول سعرابين كي قاجو النبي عليه الصلاة والسلام حلقات كيسي كمدا أيو النبي صلى الله عليه وسلم كو أخي آيات داس وحي جيبا كو سودقي إسلام مركبا أصحابته وحي قد بيي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا كو إلهي النبي الرميو دولك إلهي النبي الرميو لفيني الكينا نارتك لبح صدى با إلهي قاجك لبح صدى لمورن قاجا لغا سوياعي دبات سكاليا لغا سوياعي toban dhibaato maanta faraha la galo la mikir leeyahay qo anfusakum wa ahlikum nara mufassiriintu waxay ku fasireen lafihiinna diinta barta ubadkiina yeelkiina diinta baraba ilaahay aayada diinta lagaga badbaadaya naarta aayada markay soo degtay waquduha an-nas wal hijara markuu nabigu aayada ku akhriyay in xabashiga nabiga hor fadhiyay majliskiisa lilma ayuu sii daadiyay uu ooyay oo intiisii buu saysan kari waayay ilaa jibriil ka soo degay calayhi salaam يا محمد كان هوساد كوه يوايو مركاسور يا جبريل وأدون ريح بشاء وأهل الخير ومؤمنة آيات داسان كو أخريو واتكي سكري وايقولي مركاسور يا جبريل يا محمد إلهي وحيري وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي لا تبكي عين عبد في الدنيا من مخافتي إلا أكثرت ضحكها في الجنة إلهي بالع شرفت إذا وين إذا عرشك يقصر أيا كدارتي أدومها يقا كمدا الدويدة دوشيدة مويو عبصديد لما هويو هدي اللي هلسه مالك لقطيه لقاويه قيامها أيان قصل كي سبد يا بيلا هيدي لحدا السنو أيو كنا ما يسني طاعد إلهي عبصدي سي خوف يا خشدي بكاء أبا القد يسوح نغني مالك لقطيه لقاويه أيو عرشك هوستي ده كرسي الله دقيا وقصليا الله ينقدك كواس فدتكي هوري قلوبتو مركو افتينكو قال نور الإيمان هي نور العلم هي نور القرآن هي نور الهداية مركي أفرتها نور قلبي وقوه ساميي آخر دي باو عداتي قرآن كيف فهمين وحي جيبي فهمين عمر يا أبو بكر مركو النبي انتقال عليه الصلاة والسلام أيي دادين أبو بكر باكود عمرو أم أيمن النوغي هنبوقنة سيدي النبي بقو زيارنا يهنو زيارنا النوغي مركاسو ويسا صور راعين أم أيمن بيوي مادين مركاسو مر علي مركي أركت أبو بكر يا عمر وضع السعودة أم أيمن ويل الميسي مركاسو عمر أبو بكر باكويري يا أم أيمن ميانا دوغي النبي إلهي أكتي إنه خير بدنتاي من النبي وأن نقول حسوسنا يسامعنوه ويانا وحيتري وأنوغهي نبي محمد الله أكتي إنه خير بدنتاي وأنوغهي وحنلوه يجري سكما وينه وركي السمد النوغي إيماني يبان نقول قاي بيتري عجيب فالأمد صدق قرآن وحد ندو في رسول لقيسو وفهم قبل ولا شيء مسلمة داي زمن كادتكو سيدي قرآنك وقوحد نايين هيك رقي دمر ما أنت محال قوحرية محال قوحرية ما أنت إيمانك وامحي تقديم بالنظر وتصديق بالخبر وحي نفع الشعار كي صدم بينه وح صمد كي مدي ورنا الرمي هذا هو الإيمان قرآن كي حديث كالرمي وركو قنا قاضو وحي لبدا كبح سنة هيالين معايا لوابين وحبك مسعونيان لبدا صنبا دبا لبدا وركو قنا القادتنا فرد بيكو قطع dadkii markay warka qaateen adduunkan iyo aakhiro way ku liibaaneen marka nolosha adduunyada maxay tahay boolalayaal maxaa la isku daalinba qadra daruura adduunyada ka isticmaal ha dhexdegin guri bila masquula ma dhici karto
laakiin musqusha la dhex seexan maayo markay xaaja ku qabato un baad gali waad ka soo bixi haddii uu yidhaahdo qofku ka warramay intuu firaashkii qaato yidhaha musqushaan dhex seexanaya maxaa la odhanayaa adduunyadu waa caynka haddii uu yidhahdo qofku tan un baan aqaanaa tii dambe ma aqaana ee qorshahayga way ka baxday tan un baan aqaanaa hadduu yidhahdo waa majnuun uu waalan yahay qofkaas ilaa dabiib u baahan yahay adduunyada isticmaal lama diidano laakiin sideed u isticmaalaysaa sida ninka guriga la musqusha uu isticmaalo adduunyada u isticmaal qadra daruura adduunyada ka qaado